calaamado haddaad aragtid waxay tilmaamayaan ninku inuusan gabadha jeclayn ama haweeneyda u jeclayn hase yeeshee uu khiyaano ku wado. gabaryahay calaamadahan ka ogow ninkaada ama ninka aad shukaansataan ee beentay khiyaanada kuu sheegaya. dhaqankan haddaad ku aragtid khiyaano kugu wadaa iyo waana been waxa uu kuu sheegayo, wakhtigayuusa kaa dhumin. marka dadka qaarkood waxaa laga yaabaa inay yidhaahdaan, gaar ahaan ragga, jacaylku waa indhala'ya. laakiin xaqiiqadu waxaa weeye jacaylku ma ahan mid indhala, gaar ahaan markuu bilowga yahay. laga yaaba xoogaa inuu xoogaa caqli usa lahayn, laakiin indho waa leeyahay markuu bilowga yahay. laakiin markii xidhiirku xoogaa sii socdo laga yaaba caqliga inuu u soo noqdo, aanad qiimaysid oo miiska aad saartid xidhiirka jacaylkaas uu leeyahay, si caqligaadu dib ugu soo noqdo oo jacaylka caqligiisa aad u soo celisid. waxaan ku calaamadaynaynaa inshaa allahu tacaala calaamado tusaya qofka nolosha kula wadaaga ama sheeganaya inuu kula wadaagi doono ee xidhiirku idinka dhexeeyo inuusan ku jeclayn. calaamado tusaya ayaan ku calaamadaynaynaa. laga yaabo inuu ku khiyaamayaba marka hore hadday ku soo martay khiyaamo ama bilowgii aad dareentayba, waxba ha ku sii dhex jirin khiyaano, waayo qofka mu'minka ah god 2 jeer lagama qaniino, 2 jeerna lama dago. calaamadaha waxaa ka mid ah ama qodobka ugu horeeya, calaamadda ugu horeysaan soo qabanayna waxaa waaye taleefankiisa kama tegayaba. mar allaali markuu ku arko ama aad la joogtid taleefanka jeebka ku wataa ama gacanta ku haystaa. ma dooniya taleefankiisa inaad u gacanta ku qabatid ama halka uu saarnaado ama miiska ama halka uu iska yaallo, ilaa sir baa ku jirta, ma ogtahay waxbuu ilaalinayaa. taleefankiisii asagu sidaas iskugu qofalan yihiin li'anna aduu kaa ilaalinayaa, isagoo isdhahaya cadow bay taleefanka ku tahay iyo macluumaadka ku jira. dhammaanteen waxaan ognahay in dadka intooda badan aysan taleefankooda ka tegin duruuf kastay dhibaato kastoo qabsata. laakiin waxay ogaataa gabar yahay, qofka nolosha kula wadaaga ama kula wadaagi doona ee kuu sheegaya inuu kula wadaagi doono taleefankiisa ka tegi mayo marka uu khiyaanada kugu wado. mar allaala markaad isla fadhidaan iyo intaad isla joogtaan iyo daqiiqadaha xataa saacadaba ha noqoto, saasuu taleefanka kaga ilaalinayaa. taasna waxay tilmaamaysaa taleefanka waxa ugu jira ee uu ku dhex samaynayo ayaa adiga kaa muhiimsan, waana calaamad tusaysa arrin aan wanaagsanayn. ninkaadu ama qofka sheeganaya inuu mustaqbal kula wadaagayo laakiin beenta kuu sheegaya, ma fiirisa weli dhaqdhaqaaqiisa iyo hadalkiisa, oo ma ka dareentay inuu kaa horumarinayo asxaabtiisa iyo dadku la xidhiiro oo ay kaaga muhiimsan yihiin isaga agtiisa. ma dareentay shakhsi kale inuu ku xidhan yahay oo wakhtiga iyo bixitaanka iyo raacitaanka uu siinayo. mase dareentay haddii uu raaci waayo ama qofka is haleeli kari waayaan raacitaanka adigoo ku raacayo inuu ku faraxsan yahay iyo in kale maad fiidhisa. calaamaddan waxay tilmaamaysaa adigu inaad tahay qofka ugu dambeeya. haddii asxaabtiisa kale uu ku fashilmay inuu maanta raaco ama wakhti la soo qaato, ama gabar kale uu kaa qarinayo maanta ay ballansanaayeen inay israacaan ama isla kulmaan, laakiin dhinaca gabadha ay ka suurtageli weysay, taa uu ku fashilmay, soo ma ogid adiga inuu ku soo magangelaya markaas, iskaga kaa dhigayana inuu adu markaa wakhti ku siinayo, le'anna meeshuu wakhtigan ku bixin lahaa ayaa isa soo xirtay. marka adigu waxaa tahay qofka ugu dambeeya ee lasoo magangalo, ama qofka ugu dambeeya markay albaabada dham soo xirmaan ama la waayo ama ay suurtageli waayaan wakhti lagu talagalay in adigu tahay albaabka ugu dambeeya ee la furto. macnaha muhiimad lambarka koowaad oo ku siin mayo, laakiin wuxuu rabaa wakhtigan keliya inuu kula qaato, wakhtigaanoo dad kale iska lahaayeen laakiin dadka kale ay u suurtageli weyday inuu la qaato. marka xoogaa niyaddu kugu dhisayaa, naftiisu dareensiinayaa in qof uu la joogo. taa haddaad ku khasaartay tani hawaayin weeye macnaheedu. in badoona ka midana ragga dhaqankooda weeye. marka calaamadda noocaasa haddaad aragtid waa calaamad tusaysa inaan ahmiyad gooniya lagu siinayn, wax wanaaga iyo wax mustaqbal iyo jacaylana lagu hayn, oo ay tahay oo keliya wakhtiga in laisku kaa dhaafiyo, wakhtigan adiga lagaa dilo. taasoo mushkilad badan ku keentay gabdho badan oo maanta dunida ku nool. calaamadda kale waxaa weeye ninkan maba dareensanaba qiimahaad ugu fadhidid iyo qiimahaada ku dareensiin mayo. mar walba waxaad ka arkaysaa inuu ku qiimo tirayo. qofka ku jecel waa qofka inta badan ku dareensiiya inaad muhiim gooniya aad u leedahay oo aad qiimo leedahay, ayuu ku dareensiiyaa qofka ku jecel. isaga markii loo fiiriyo qiimaad la leedahay, laakiin arrinta hadduusa kuu samayn waxaad ogaataa hoosta ka xiriiqdaa maantay in arrimo khaldan ay jiraan. calaamadda kale waxaa weeye amarkaadaba iyo waxyaalaha aad keentid ee muhiimka u ah nolosheenna maba fuliyaba, daaqaddu ka tuuraa. inta badan wuxuu ku dhahayaa meeshaas hiblaaye ah ayaan aadaynaa, kadibna wuu dhuntaa oo wuu isqariyaa,
isbuucyo kadib ama maalmo kadib ama saacada kadibna intuu kuu imaado ayuu wuxuu iskaga kaa dhigayaa inaysan waxba dhicinba. waa ballansanayd inaad meel isku raacdaan, uu kuu gooyey si kas ah, kadib buu kuu imaaday. wuxuu doonayaa arrintaanuu ku hilmaansiiyo, iskana dhigo qof aan waxba ogeyn. naftaada iyo tiisana wuxuu dareensiinayaa inaysan waxba dhicin, caadi wax la yidhahda inay jiraan. marka tilmaamahaad bixinaysay adiga iyo ra'yigaad soo jeedinaysid ee noloshiinna khuseeya maba fulinayaba, wax qiimo ana ma siinayo, mana qadarinayo. meeshaad ugu sheegtana ka qaadimayo. haddana wuxuu sheeganayaa inuu kuu jecel yahay oo ku ixtiraamayo. jacaylka iyo ixtiraamkaas far baa ku godanee la soco gabar yahay. khalad badan baana ku jira oo wax weyn baa ka khaldan. mararka qaarkood waxaa laga yaabaa inuu kuula dhaqmo sida asxaabta caadiga ee uu leeyahay, qof noloshiisa u muhiim ah oo lambar gooniya oga qoran kuuma qadarinayo oo meeshaa ku saari mayo. laakiin wuxuu ku dhigayaa meesha asxaabta caadiga ah iyo dadka caadiga ee suuqa is yaqaanaan uu dhigo ayuu ku dhigayaa adna. agtiisa inaad muhiimad gooniya ku leedahay kuma dareensiinayo. qofkaad jeceshahay ama nolosha kula wadaaga ee xaaskaada ama ninkaada, waxaa muhiima inaad siisid darajada koowaad ama lambar kow aad siisid muhiimadda. laakiin dadka kale caadigaa sidaad ula dhaqantid, haddaad ula dhaqantid jacayl iyo qadarin iyo muhiimad baan jirin. calaamadda kale aad ku fahmaysay khiyaanadiisa iyo khidaaciisa iyo dagiddiisa waxaa weeye markaa wada hadlaysaanba adaa hadalka bilaabayaba. waxaad u fiirsataa gabar yahay, labadiinna qofka ku horreeya xiriirkii dambe ama farriintii ama meesajkii dambe qofka soo diray u fiirso qofkuu yahay. haddaad adiga tahay mar kastana arrintaa adigu aad samaynaysid oo qofka meesajka diray adiga aad tahay, qofka wacaya adigu aad tahay, mar kasta hadalka ku bilaabayo caafimaadkiisa waraysanaya haddaa adigu aad tahay, ogowkaasi kuma jecla. xitaa ma ahan qof adiga ku danaynaya oo hadalkaada u xiise qaba maaha. marka mar kasta adaa hadalka bilaabaya, meesajka soo bilaabaya, mar kasta adaa ku soo dhufanaya. bal taasna u fiirso qofka u badan. aad baad u mahadsan tihiin. meelaad joogtaanba farxad iyo bashbash ayaan idiin rajaynaynaa.